munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay jaamacadda IBU University ee degmada Garadagh ee galbeedka gobolka Sanaag oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin sarsare oo ka socda xukuumadda Soomaaliland xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka salaadiinta ganacsatada iyo haldoorka kala duwan ee dalka oo ka kala yimid gobolada kala duwan ee Soomaaliland ayaa waxa mas'uuliyiin haldoor salaadiin iyo xildhibaano kamid inta madashan ka hadashay oo kala ahaa Professor Khadar Cilmi Barre Suldaan Yuusuf Cabdi Cawad xildhibaan Cumar Jaamac Faarax barasaabka gobolka Sanaag Axmed Istabare iyo gudoomiyaha koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Siciid Miro Faarax ay dhamaantoodba si qoto dheer u hoga tusaaleeyeen una bogaadiyeen dhamaystirka wadada xidhiidhisa gobolada Togdheer iyo Sanaag oo iminka si fudud lagu gaari karo sidoo kalena la iska kala gooshi karo gobolada iyo dalka intiisa kaleba dhamaystirka wadadaasi awgeed waxayna bogaadiyeen mas'uuliyiinta kala duwan ee wadadaasi gacanta ku haysa waxaana xusid mudan tan iyo markii la magacaabay maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland iyo maareeyaha ku-xigeenka wakaaladaasi iyo wasiirka wasaaraddaasiba ay si dhaqso ah oo dardargelin iyo hufnaan shaqo ka muuqato ay u dardargeliyeen sidoo kalena u dhamaystireen dhismaha wadadaasi waxaan runtii u mahadnaqayaa oo mahadnaq weyn u soo gaarsiinaya hay'adda RAD ama Road Development Agency oo ugu horeeya maareeyaha ku-xigeenka Khadar Cali Caarshe oo runtii la'aantii aan isleeyahay xafladani may qabsoonteen laba arrimoodba koobaad waa dardargelinta ay isaga iyo xukuumaddiisu dardargeliyeen wadada aynu sida sahalka ku soo marnay ilaa Burco ilaa iyo maxay haytay Cirigaabo rag ay kaga soo baxeen Hargeysa Saaka rag Burco u soo hoydeen rag meelo kale u soo hoydeen isku hadleena ay qabeen inay wadada ay marayaan isaga iyo hay'adiisa iyo xukuumadaba dhammaan arrinka waan uga mahadnaqayaa waxaan kaloo Khadar mar labaad uga mahadnaqayaa inuu ka hirgeliyay jaamacadda isagoo runtii aad iyo aad noola shaqeeyay inuu ka hirgeliyay banaanka aynu arkayno iyadoo dagaal dabal xagaay ay jirto oo haddaad iman lahaydeen dhowr casho ka hor runtii ay sigadu aynaan halkan fadhineen laakiinse inoo baneeyey meesha noo baneeyey qalab geliyey noo rusheeyey isagana si gaara oo runtii waan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo wax ka geysatay jaamacadda laamiga aragtaan ee uu nin waliba u soo seexday Burco xalay toole ama ragga qaar meelo dhexe soo seexday isagoo wadada ka warwaray waxay ka mid tahay waxyaabaha Ilaahay loogu mahadnaqayo maalinba waxa weeye kuraasta rag baa jooga raggaasina taariikho iyo xusido gaara bay leeyihiin ducada markaan ka tago marxuumka waxaynu u ducaynaynaa madaxweynaheenii hore oo wadada maanta jaamacadda lama dhiseen haddaan wadadaasi aanay dhisnayn wadadaasi ilaa iyo road markaa madaxweynaheenii hore ee wadada iyo xukuumaddiisii inoo hirgeliyay wadada ilaahay subxaanahu wa tacaala isagana dembigiisa ha dhaafo ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro khayr weeyaan uu ka tegey oo inta uu shaqaynayo u socon doona waxaa iyaguna mudan oo aynu ducaynaynaa dee xukuumadda dambe iyo madaxweynuhu galbeedka ka yahay ee halkaa kasii wadadu iyadoo qabyo ama dowladdii hore meesha ka baxday dowladdan iminka joogtaa sii waday wadadii dhammaysay maareeyaheediina waa joogaa wax badan kama dhinna maraa meelo kuunda yar mooyaane wadadaas way dhan tahay ilaahay cid kasta oo ka qayb qaadatay dowladda iyo shacabka ilaahay dembigooda ha dhaafo miisaanka xasanaadkana ha ugu daro dee waxay burcaanu soo seexanno 2 saac iyo waxaankaas aan soo soconnay bay suura gasheen taasina waa ka weeyaan alxamdulillah waa u mahad celinaynaa xukuumadii kala dambeeyay wadada iyo sida inoogu hagaajiyeen infrastructure-ka oo maareeyuu inagala joogaad baan ugu mahad celinaynaa wakaaladda horumarinta wadooyinka oo maanta goorta aad saaka ka timaado Hargeysa qadada halkan aad ka qadan karaysaa waa wadada loo sameeyay
waxay ku timi amniga nabadda iyo wanaagga waxaan rajaynayaa wadooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Khadar Cali Caarshe oo runtii la'aantii maray ku-xigeenka oo la'aantii aanay suurto gasheen xafladii quruxda badnayd ee ka dhacday Jaamacadda Ibrahim Barre University sidoo kale wuxuu qayb weyn ka qaatay dhamaystirka jidka Siilaan Road ee isku xidha Sanaag iyo Burco waanu mahadnaqayaa maray ku-xigeenka iyo guud ahaan wakaaladda RDA waxaanu la ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca shirgudoonka in ahamiyadda ay leedahay